kulan wacan oo wanaagsan isu soo noqod wanaagsan saaxiibada ku xiran Maamuus Media Production like sar muuqaalkan sidoo kale haddii aad ugu cusub tahay oo ay tahay markaa kugu horeysay oo soo booqato kanaalkan subscribe sar channelkan waan kaga mahadcelinaynaa dhiirigelinayo noo tahay sidoo kale saaxiibada hore inoo lisi joogay waxaan leenahay ka bogasho wacan aan guda galno muuqaalka maanta wax ka ogow sirta ka dambaysa in mid kamid ah heesaha uu qaado fanaanka reer Muqdisho Sharma Boy ay noqoto heesta kaliya ee haysato 100,000 oo like marka loo eego heesaha fanaaniinta Soomaaliyeed ee YouTube-ka ku jira ay ku luqeeyeen haddaba tani waxay uga dhigan tahay Sharma Boy ma taageerayaal badan oo jecel ayuu leeyahay mise hibadiisa faneed ayaa ah mid aan hore loo arag weligeed ma dhicin in 100,000 oo qof in ay ku durduriyaan hal hees oo qura calaamada like-ta waxa jira fanaaniin badan oo la wada jecel yahay kuwaasoo heesahooda in ka badan 2 milyan oo qof xitaa qaarkood 10 milyan ay daawadeen laakiin hore looma arag hal hees oo qura inay soo jiidato dad badan sidoo kalena ay hesho 100,000 oo like heeskaasi waxa uu Sharma Boy soo qaaday ka gadaal marka uu soo afjarmay dagaalkii kala dhaxeeyay Daahir Cali Sow kaasoo wajiyo badan lahaa oo xitaa Sharma Boy gaarsiiyay heer xabsi loo taxaabo sabab la xiriiro shil gaari oo ku lug lahaa xilligaasi mar uu garoobay ku sugnaa ma la oran karaa marka maadaama heestan ay soo baxday xilli Sharma Boy ay dhagihiisa ka sii dhaxqaylinayeen isla markaana uu wajahayo xurguf kala dhaxayso Daahir Cali Sow iyo waliba geeridii gabadhii gaariga la saarneed ee la sheegay inuu isagu sabab u ahaa maadaama uu xilligaasi gaariga ka xinayay dad badan ay dareemeen in ay ugu heliyaan YouTube-ka ay ugu heliyaan heesihiisa taageerayaashiisa ayaa u muujiyay heel taageeranimo oo waxa ay gaarsiiyeen rikoor uunan fanaan Soomaaliyeed hore u gaarin taasoo ah in muuqaal dhowr toddobaad ku jira oo waliba bil ka yar ku jira inuu gaaro 100,000 oo qof oo ay like saarto alfanaan Sharma Boy waa fanaan da'yar kaasoo muddo aad u yar ay ku qaadatay inuu ka soo muuqdo masraxa fanka isla markaana hantiya taageerayaal aad u badan oo uu shacbiyad ka dhaxelo waxa uu ku soo caanbaxay heesaha raabka inkastoo heesihiisa waayadan dambe ay u bateen dhinaca karbaashka siiba ay yihiin heese ay ku jiraan erayo kala duwan oo kaga falcelinayo hadba waxa uu isleeyahay oo caqabad hortaagan fankiisa waxaynu aragnay heeso badan oo la sheegayo in uu ka abaarayo ama uu kala bartilmaameysanayo shakhsiyaad kala duwan hase haatee waxaad moodaa in waayadan dambe dhammaan fanaaniinta qaada heesaha raabka ay ku jiraan dagaal aad u weyn fanka Soomaaliyeed oo marba dhinac u liicaya iyo waayadan dambe oo aad loo xiiseynayo fanaaniinta qaada heesaha raabka oo intooda badan ku luqeeya erayo raab ah markaad si fiican u dhuxdo ay ku soo baxayso in shakhsi lagu abaarayo amaba in fanaanka uu jawaabayo fanaan kale kaasoo hees ku soo duqeeyay ama isaga ku karbaashaya Sharma Boy waxa uu si weyn xoog u saarayaa inuunan sinaba taageerayaashiisa hoos u dhigin marba marka ka dambayso uu soo saaro heeso laxankooda iyo erayadooda ay la dhacaan soo wad jiilka ka dambeeya waxay taageerayaasha dhinaciisa ay yihiin hadba fanaanka markaas ay u arkaan inuu talent fiican leeyahay oo dardar ku socdo waana sababta alfanaan Sharma Boy ay u bateen taageerayaashiisa ama xilligiisa uu ku jiro imikaba waa hubaal in xilliyadii bariismaadkii ay jireen dad badan oo aad taageero ugu muujin jiray fanaaniintii hore ee la wada yaqaanay sida Xasan Aadan Samatar Maxamed Suleymaan Tubaac Hibanuura iyo qaar kale oo fara badan oo sidan loo xiiseyn jiray xilligaasina ay ahaayeen fanaaniin aad u cadcada oo ka dhex muuqda bulshada markaas sidaas oo kale waxaan leenahay imika qarniga 21aad oo jiilka hadda ay xiiseynayaan fanaaniinta raabka ku ah fanaaniinta caanka ku ah heesaha raabka intooda badanna ay taageero xoogan ay ku dhex leeyihiin fanka Soomaaliyeed